بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا ولا ليدا مسلمين تو موضوعا وحين كجور رمي دونا أرين حساسي أو إن بدن بني آدم كويمكاي كل منا ما خدكاي كجبحين oo diimihii ba laftigoodii amaan odhan karayno diimaha in ay ka ridoobaan asbaab u ah mawduucanina wuxuu ku saabsiisan yahay xayawaano la helay lafahooda ama meydadkoodii la helay oo aad u waaweynaa oo markaa awood iyo xoog lahaa oo noolaan jiray bani aadamka ka hor intaanu dhulkan aanu imanin nebi aadam calayhi salaam xayawaanadana magacooda waxaa la odhan jiray dinosaur dinosaurku markaa waa xayawaano waaweyn oo la sheegay inay noolaayeen malaayiin sannadood ka hor ereygan dinosaurna wuxuu ka yimi ama uu ka soo jeedaa laba erey oo isu tagay oo luqadda afka Greek ah waa kelmadda dina oo macnaheedu uu yahay shay weyn ama wax laga argagaxayo sidoo kale kelmadda saur oo macnaheedu ay noqonayso wax gurguuranaya ama beerka ku soconay dabcan dinosaurkii may ahayn xayawaano markaa beerka ku socda ama gurgurta waxay ahaayeen xayawaano waaweyn oo laga cabsanayo marka la arko ama argagax la dareemayo xajmigooduna uu aad u weynaa miisaankooduna uu aad iyo aad u weynaa oo tobanaan jeer ku soo labalaabmayay maroodiga qaangaadhay xoogga leh ee naqaano walaalayaal dinosauraadkaas waxaa la sheegaa in markii ugu horreysay ee dhulkan ay ka soo ifbaxeen inay ahayd qiyaas ahaan inta ay bani aadamku qiyaasayaan 220 milyan oo sannadood ka hor waxayna dhulkan ka talinayeen sida la sheego 150 milyan oo sannadood kadibna si kadis ah baa loo dabargooyo way dabargo'een markaa dinosauraadkaasi oo waa la waayay muddo laga joogo 360 milyan oo sannadood asbaabta keentay inay dabar go'aana waxaa la sheegaa ama culimada aataarta baadha ay sheegeen in danabyo ama sawaaca cirka kaga timi oo ciqaab ahaan ama wax la ciqaabay sidii la ciqaabayo kale danabyo iyo madaafiic rabbaani ah ay dhulka ku dhaceen kadibna ay dabar go'een dinosauraadkii bariga iyo kuwii badaba ku noolaa dhammaantood haddaba xayawaanadan dinosauraadka ahaynu tilmaamnay inay dadka qaar ku fitnoobeen ma xayawaano jiraba suurtagal ma tahay inay jiri karayaan ma lagu sheegay quraanka kariimka iyo sunnada nebiga sallallahu alayhi wasallam ugu horreyn walaalayaal xayawaanadan jiritaankooda ma diidayo quraanka kariimka oo ma odhanaya iyo sunnada nebigu laftigooda ma odhanayaan labadooduba maysan jirin oo wax jira ma ahayn khiyaaliya marka hore taa horta maskaxdaada geli iyo caqligaaga geli kitaabka quraanka iyo sunnada nebigu may diidin jiritaanka ay jireen xayawaanada waaweyn ee dinosauraadka la dhaho laba su'aalood oo kale oo muhiim ah baa imanaya oo aan jeclahay inaan ku falanqeyno markaa mawduuceenan oo kala ah su'aasha koowaad miyay jireen noole kan noola yani dhulkan ku noola nebi aadam calayhi salaam ka hor iyo su'aasha labaad oo ah weynidan intan la eeg miyay lahaayeen iyo xajmigan intan la eeg ee la tilmaamayo sida dinosauraadkan imika la sheegay xajmigan intan la eeg iyo ballacan miyay lahaayeen labadaas su'aalood ayaan markaa gundhig uga dhigaynaa mawduuceena oo aynu kaga doodi doonaa haddii ilaahay ka dhigo subxaanahu wa tacaala walaalayaal marka ugu horreysa nebi aadam calayhi salaam intaan dhulkan la keenin oo aan laba abuurinba dhulkani nebi aadam wuu ka horreeyey nebi aadam calayhi salaam wuu ka horreeyey de malaayiin sannadood buu ka horreeyey dhulkan abuuridiisu sidaa awgeedna dee dhulkan maadaama uu jiray oo ilaahay uu isu dheelitiray oo markaa waxyaalihii markaa noole uu u baahnaa ay jireen hadday noqoto roobkii iyo dhirtii iyo markaa cawskii iyo markaa xayawaanadii iyo dawaab oo dhan yani wax alaaliyo wixii noole ah ilaahay subxaana wa tacaala dhulkan wuu keenay nebi aadam ka hor intaanu imaninba markaa dhulkan xayawaano way jireen intaan markaa nebi aadam calayhi salaam laba keeninba xayawaanadaasi ha noqdaan dinosauraadkan la sheegayo ha noqdaan dhir iyo markaa kalluunka badda ku nool ama dhir ha noqdaan ama caleema ha noqdaan ama xayawaano kale oo aynaan iminka garanayn ha noqdaan laakiin waxaa cad oo qur'aanka ku cad oo axaadiista nebiga ku cad calayhi salaatu wasalaam in ay jireen xayawaano iyo noolayaal ku noolaa dhulkan intaan nebi aadam calayhi salaam la keenin yani dhulka ka hor
waxaana u daliilad ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamay gaar ahaan suurati albaqara suuradda labaad ee qur-aanka kariimka aayadda 30aad wuxuu leeyahay waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa waxaad xustaa rasuulka ilaahayow markuu rabbigaa ku dhahay malaa'igtii innii jaacilun anigu waxaan yeelaya macnaa waxaan abuuraya buu alla leeyahy malaa'igtiisii buu la hadlaya innii jaacilun fi lardi khaliifa dhulka waxaan yeelayaa cid dhaxlaysa khaliifa waa maxay khaliifa waxa weeye waa cid u hadhaysa dhulkii ama cid dhaxlaysa khaliifa marka macnaheeda kelmadda khaliifa ayaa ah kelmadda ugu mucjisaysan waa mucjisiya la yaab ilaahay kelmadaadu cajiiba buu isticmaalay wuxuu yidhi khaliifa waa yani waxaan yeelayaa cid u hadhaysa ama cid dhaxlaysa halkaa waxaa laga qaadanayaa in ay jiraan xayawaaniyo noolayaal ka horreeyay dee nebi aadam laakiin aadam markii la keenay basharkii iyo bani aadamkii tarantiisii markay ay timid ayagaa markaa taladii la wareegayo dhulkii markaa qabsanayo khaliif bay ka yihiin dhulka subxaan allah ilahay wuxuu dhahay markaa innii jaacilun fi lardi khaliifa dhulka waxaan ka yeelayaa khaliif qaaluu waxay dhaheen markaa malaa'igtii atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa ilahayow ma waxaad ka yeelaysaa dhulka dhexdeeda kuwa fasahaadinaya dhulkii oo dhiiggana daadinaya wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu laka annaguna ku mahadinaynaa oo tasbiixdaada yan yacni ku tasbiixsanayna mahadintaada oon ku mahadinayno oon ku weynaynayno qaala wuxuu dhahay markaa rabbi innii aclamu maa laa taclamuun anigu waxaan ogahay idinku ma garanaysaan waxaan ogahay oon cilmi u leeyahay idinku cilmi uma lihidin buu alla yidhi subxaana wa tacaala isagoo la hadlaya malaa'igtiisii وعلم وحو بري الله سبحانه وتعالى آدم النبي آدم بو بري الله أسماء كلها مقعي دمانتو ديو بري لبدا آيدو كليا أيا كفلا إن أي جيرين حيوانو إيا نولة إيا مخلوقات دولكن كنولا نبي آدم عليه السلام كهر marka ugu horeysa malaa'igtii waxay ilaahay wuxuu dhahay khaliif ban ka yeelaya buu markii ugu horeysa u yiri kelmadda khaliif sidaynu ku sharaxnay waxayna tusaysaa maxay in nebi aadam calayhi salaam uu yahay cidda dhaxlaysa dhulkane oo cid kale ay uga soo horreysay qaybta labaad ee aayadda malaa'igtii waxay tidhi ilaahayow ma waxaad yeelaysaa dhulka cid fasahaadinaysa oo dhiigga daadinaysa halkaa waa la isweydiiyaa culummadu waa isku khilaafana wax la dhahaan sidee bay malaa'igtu ku garteen in bani aadamkani uu dhiigga daadinayo uu fasahaadinayo dhulka waxay dhaheen culummadu arrin aad u cajiiba balo fiirsada waxay dhaheen dhulkan hadda ka hor waxa ku noolaa noolahaasi wuxuu fasahaadiyey dhulkii buu fasahaadiyey dhiiggoodiina wuu daadiyey kadibna ilaah baa dabar gooyey oo waa la laayay oo waa laga argoostay oo gebigoodiiba saaciqo iyo markaa ganaax baa lagu soo rogo waa la laayay marka halka aayadda laftigeeda qaybta labaad oo ay malaa'igtu laftigooda ay leeyihiin ma waxaad yeelaysaa ilaahayow cid markaa dhiiggii daadinaysa oo dhulkii fasahaadinaysa halkana waxaynu ka qaadanaynaa in dhulkan nebi aadam calayhi salaam ka hor ay noolaayeen noolahaasina ay dhiigga daadiyeen oo ayna fasahaadiyeen oo ay malaa'igtuna markhaatiya marag iyo shaahid ay ka ahaayeen dabadeedna ay moodeen nebi aadam iyo dhashiisuna inay la mid noqon doonaan sida xayawaanadii ay dhiigga daadiyey dhulkana fasahaadiyey oo kale aayadda labaad ilaahay wuxuu yidhi wacallama aadama alasmaa nebi aadam ayuu ilaahay wuxuu baray magacyada dhammaantood kullaha dhammaan magacyo waxa jiroo dhan nebi aadam baa calayhi salaam la baray ama luuqada ha noqodaan ama magacyo sababta luuqaddu waxay ka abuurantaa magacdeen waa magac markaad haysid magac ayaa marka magacaasi kasii farcamaysaa ficil uu imanaya oo xarfigii iyo markaa magac iyo ficil iyo qurbe markaasay imanaya laakiin magaca ugu horreeya magacna sidee baa lagu gartaa ama sidee baa magacuu ku yimaadaa magac wuxuu yimaadaa markuu shay jiro tusaalaan ku siinay tv-gu markii aanu jirin 200 sannadood ka hor ama 100 sano ka hor tv miyuu jiray waa maya magaca tv laftigiisuna muu jirin laakiin markii la sameeyay tv ayaa waxa yimi magacan tv markii la sameeyay radio ayaa waxa yimi magaca radio subhanallah baabuurka intaanu baabuurku aanu jirin ama gaadhigu intaanu jirin magaca gaadhina cidima yaqoon laakiin markii shayga la sameeyay bani aadamka ay farsameeyeen ayuu magaciina yimi marka ilaahay markuu leeyahay wacallama aadama alasmaa'a kullaha nebi aadam baa la baray magacyo dhammaantood waxay daliil u tahay in makhluuqaadku dhammaantoodba ay jireen
إن مخلوقاتك أي جيرين. ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام صحيح في البخاري ومسلم كسارورتي وحيليهن مخلوقات كإلهي وأبوري وحقدم بي النبي آدم عليه السلام. نبي آدم وحوهق ومخلوقات كي قدم بي بوها هي بشر كي بني آدم كان يمكنول وحي كهري يردن حيوان له نولا كلا له مخلوقات كلا له دولكم كنولي نبي آدم عمرقي سوي كهري مركا هالكاس وحين قادن إن دولكن أي كنولايين نوليال يا مخلوقات كهري النبي آدم عليه السلام. أن ديناصورات كنا وحي كميديهن مركا حيوان داس كنولان جري دولكن كنولان جري إن حوق لهايين أو أي واوينايين أو أي قوة لهايين آيات فربضان القرآن كميدة يا حديث النبي قاتل المامس صلى الله عليه وسلم. الله وحده سبحانه وتعالى وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. فربضنا أبو لي هل سبحانه وتعالى أما إمسان هلقنا قرنيو قرونو كحوق بدن بني آدم أما كحوق بدن قاعد كستا حوق اسبيداي أما أود شيء كحوق بدن وحق بطش يا قبشد يا حوق يا أود يا قوة ويكا درناين فنقبوا في البلاد ورب الفتيش البلاد كي يدول كي يدي كان ندبل صبر بعد سبحان الله وحذر كي دونتان بني آدم كان من كنولي إن أنا وحبي هاي وحبا أنا أهين هل من محيص إلهي عقاب كيس معد باكبت بادي كريسادو إلهي أو عروطو أما عقاب كيس وسر رجو وعيد الضنين وعقاب مركا آيات فربضان وسيدا سوكلا ميلا فربضان أي إلهي سبحانه وتعالى وحي نوغوه قلتو سالين إن أي جيرين نوليالي مخلوقات كواوين بني آدم كانوا كحوق بدن وكجرات بدن وكعقل بدن oo dabadeedna markii ay waasheen ama ay qooqeen ama markii ay fasahaadiyeen dhulkii ama ay dhiiga daadiyeen dabadeedna Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu halaagay oo ciqaabay. dhanka kalena culimada baadha xayawaanadan la dhaho dinosauraadku waxay sheegan iyagu laftigoodu in dinosauraadku ay dhiiga daadiyeen dhulkana fasahaadiyeen ayna islaayeen ayna ku gardaroodeen xayawaanadii ka yaryaraa oo aad moodid marka sidii qowmo caad oo kale qowmkii nabi Huud alayhi salaam sidii marka ay ugu awood sheegan jireen dadkii kale iyo bani aadamkii daciifka ah ama tamarta yara sidaas oo kale ayay sheegan culimada aathartii raadadka baadha in xayawaanada dinosauraadkuna ay ku xadgudbeen ayagu laftigooduna way isku xadgudbeen xayawaanadii kalena way ku xadgudbeen dabadeedna waxa yimi bay dhaheen danab baa cirka kaga yimi danab ayaa cirka kaga yimi saaciq ayaa cirka kaga timi oo waliba la sheego meelo waaweyn oo goobo waaweyn oo imika hogag waaweyn ah ayay ku soo dhaceen danabkaasi madaafiicdaasi kadibna gebi ahaan dinosauraadkii dhulkan joogay hal marba bariga iyo badaba laga waayay waa la halaagay mid kama hadhin gebigoodii waa la gubay subhanallah marka waa ciqaab rabbaani آية لفتجدنا سدة بنبوت المامسة مركو قال لي وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إمسان هلاقني أيجو هرتودا قرونك حوق وين حق حوقي أود إمسان لهلاق تهدد ديناصورات كاسب مركو وشيء أو سلقي أو سكوحة قدبي وفسهادية دول كيبا أمبا وحا عرك كجيمي دنابيو يا صواعق يا مدافع رباني سبحانك ربنا لا إله إلا الله ويسؤاشي كلا ولا ليلا نشيق إننا وحي أهيد dinosauraadkani miyay ahaayeen xajmigan ay dadku imika boonbooniyaan ama suuradaha la iskaga qaado ee waaweyn sidan u waaweyn miyay dhici kartaa suurtagal ma tahay sidan ahaayeen haayo taasina waa suurtagal taasi waxaana u daliila xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nabi aadam laftigiisu shakhsiyadiisa isagu uu ahaa huge very huge inaga markaynu isu eegno nabi aadam iyo bani aadamkan iminka nooli wuxuu noqonayaa nabi aadam camlaaq يعني مخلوق آدوين بالنقاني نبي عليه الصلاة والسلام حديث كي وصاري بخاري يا مسلم متفق عليه لابد شيخ اسكوا فقين وحول لها أبا هريرة حديث كي وريناي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول هاي خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا إلهي وحو أبوري النبي آدم يسوقوا النبي آدم درر كيسو يهي لحدا دودون كوا هلكا سحركا يفرتا فراها بني آدم كالكا ماركتي توقود ديريتا دحي إلا انتا سالة تيرينيا ودودون وي
dirac baa la dhahaa waa miqyaas ama halbeeg bani aadamku waagii hore wax ku qiyaasan jireen marka iminka de dhudhunkaasi qiyaas ahaan wuxuu noqonayaa 50 centimeter meelahaas uu noqonay marka waa half meter buu noqonay marka 60 kaas dirac ama 60 ka dhudhun ku dhawaad ahaan wuxuu noqonayaa 30 meter ama 30 meter meelahaas uu noqonay marka nabi aadam dhererkiisu waa 30 meter subhanallah bal qiyaas inagu bani aadamka kaynoogu dheer ee maanta adduunka jooga waa 2 meter nabi aadam oo ahaa aabihii basharkuna 30 meter meelahaas uu noqonaya subhanallah idan haddii nabi aadam laftigiisa oo ahaa makhluuqaadka ilaahay abuuray kii ugu dambeeyayba uu 30 meter meelaha wacagacagaynayo oo weynaayo cimlaaq uu ahaa de bal hadda ka waran xayawaanadii xilligaa joogtayna way waaweynayeen iyaguna waxayn huge been wax camaaliqa bay ahaayeen xadiisku sii socday وحده ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك إلهي بافر النبي آدم وحكوده ملائكة أوتقو صو سلام أردقيسو وحي كوكو سلاميسو سلامتا أي كوكو سلاميسانا وسلامتا هذا يتأوبت كاغا فقال وحده النبي آدم مركا مركو تقى ملائكة السلام عليكم سلامتا عادي إسلام كوكو سلامي فقالوا وحده الملائكة السلام عليك يقولون ويك قادين ورحمة الله بكدرين فزادوه رحمة الله بوده النبي عليه الصلاة والسلام وحي سياديا ورحمة الله معناه دواد إن حريص إلهي كركاها هات مركا انت سيكدرين مركاسنا السلام عليكم ورحمة الله وحي النقطة بني آدم كمركا عرورتي النبي آدم عليه السلام ودري دوا سلامته اسكو سلامي النبي تقلي إن حريص بروكوين كتير حق الله كركينها هاتو فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن النبي يقول حلي عليه الصلاة والسلام كوكستو الجنة قلي أنا وحكو قلي صورة النبي آدم نبي آدم وحوها عملاق مرقا قفكي وويناني ياما قابكي أبيه لو أبو ريو كلابو شخصي يقول نقوني يا جنة قلي سيدو كلاو حوضاهي أرين كلو معتساب النبي يقول عليه الصلاة والسلام فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن خلقي يا مخلوقاتك كما يسنسولين إن ناقصان ما أيرادان إلا إيهاد حلوجة كذا وحلوجة كذا خلقي يا مخلوقات كان واجي هو روحي هايين حيوانات وين بقى هاي تبدأ بتشيل كي كدم بيجي ويسي يرانيين سيدا بني آدم بتشيل كدم بيساعي حق درركا أما حق تمرت أيوغسي يرانيان sidaasoo kale xayawaanada laftigooduna ay kala yaraanayeen nuqsaan ba imanaysa ama yaraansho ayaa imanaya ilaa iyo hadda waxaad ku garanaysaa marka arintaas bani aadamkii inaga horeeyay marka la eego aataartoodii iyo guryihii ay deganaayeen iyo meelihii ay seexan jireen waad la yaabaysaa sidii u waaweynayeen buuraynta leeleeg baa la leeyahay qowm Caad يعني قومكي نبي هود عليه السلام يا قومكي نبي صالح عليه السلام لو دري ده waxa indadaad waaweyn buur dhano inta la eg ay marka ay qodayaan ama ay guri ay ka dhisanayaan sidoo kale ahraamta Masar waad aragteen dadkii sameeyay dadaad waaweyn oo xoog waaweyn bay ahayn inagoo kale waxayna la midamay ahayn way xilligan aynu noolnahay waa imise talo dherarka mu'tadilka ama meel dhaxaadka ah ومتر إيه سديتن متر يشان إيه سديتن ملها وي متر أنت بني آدم كأنت وجب بدني ملها سوي متر يتطبعتن متر يسديتن متر يشان أنت صور دحية سبحان الله لكن وقت جاز واحد عند ده ودار وحق ووين وعنا تكون قرنا يسجليها الدستين يا الباب دي ووينا يا ذا كيسيد مرك الباب كذا لا دخل كني الباب بيا هاي الباب 8 متر سبحان الله الباب 5 متر وادد وكل حدا عيسيد بني آدم كيمي كانوا لو كل حدا عيو أي يجوا الباب يرو أركيين ويجلي sidoo kale waxaad arkaysaa xabaalahoodu inta la leeyihiin xabalaadu waaweyn xitaa saxaabadii iyo isku qarni oo aynu nahay isku jiiloon aynu ahayn haddana xabaalahoodu markaad tagtid xabaalaha baqiic qaar baad arkaysaa sida u dhaadheer yihiin ama ay u waaweyn yihiin subxaanallah waxaad kaloo arkaysaa lafaha meydadkii dhintay jidhkoodii markaad aragtid iyo lafahoodii waad arkaysaa laftiyo weyn waaduhu yujamaad cimlaaqo ah waadiyad weyn marka xadiiskaas laftigiisu mucjisooyinka nabiga kaleey salaatu wasalaam bay kamid tahay waxaana tilmaamay in makhluuqaadkii inaga horeeyay ay waaweynayeen laakiin jilka ka dambeeya uu si yaraani inagana jiilasha inaga dambaysa 2000 sano 3000 sanadood kadib haddii adduunyadu sii jirto way inaga yaraanayaan mitir baa laga yaabaa inay noqdaan bagabigoodu ka ugu dheer mitir uu noqdo subhanallah وهكذا
marka xayawaanadaasi inay waaweynayeen shaki ma laha iyo haddii la dhaho aad bay waaweyn yihiin waa suurtagalo way waaweynanayaan sababtoo ah nebi aadam calayhi salaam baaba weynaa isaguba oo ahaa cimlaaq oo aad u weynaa alle subxaana wa tacaala wuxuu dhahay hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shayan madkuura ma dhab ahaan waxaa dadka soo maray buu leeyahay alle subxaana wa tacaala waqti wax la sheegaba aanu ahayn waxbaba mu ahaynba mabuu jirinba nothing marka lagu eega xayawaanadii hore waaweynaa iyo makhluuqaadka kale ilaahay uu abuurtay subxaana wa tacaala waxbaba kama nihinba insaanku waxbaba kama ahaba subxaan allah marka diinaasoraadkaasi way dhici kartaa in uu jiro wayna dhici kartaa inaanu jirin laakiin suurtagalnimada inuu jiro qur-aankiinaanu ka arkayna sidoo kale qur-aanka iyo sunnadu maysan diidin manay odhanin kamanay hor imanin ma jirto xayawaankaasi may jirta muu dhahin qur-aanka iyo sunnada nebiguba waxay ku tusaysaa qur-aanku wuxuu ku tusayaa dalaa'ilo waxa weeye qur-aanku waa telegraph message yacni waa fariimo gaagaaban fariintaas gaaban haddii aad si qoto dheer usii fiirisid waxaad ka helaysaa macluumaad aad iyo aad u tiro badan marka qur-aanku waa sidaas oo kale kama wada sheekaynayo noloshii diinaasoraadkiiyo siday u noolaayeen laakiin wuxuu ku siinayaa had iyo jeer ale ishaaraat meelaha marka aad ka arki karaysid ama aad ka fahmi karaysid in ay jireen xayawaano iyo noolayaal makhluuqaad ilaahay uu abuurto dhulkan joogay oo inaga waaweynaa oo dabar go'ay oo inaga xoog waaweynaa waxaynu ku helaynaa aayaadkii qur-aanka iyo axaadiistii saxiixa ahaydba ugu dambayn waxaynu leenahay walaalayaal diinaasoraadku waxay ahaayeen xayawaano markaa waaweyn oo kuwa ilaahay uu abuurtaya laakiin ilaahay subxaana wa tacaala uu dabar gooyey oo ilaahay uu madhiyey noolaana dee bani aadamka ka hor sida culammada ay sheegaanna dee 360 milyan oo sannadood ka hor waa waxyaalaha ay qiyaasaane ayaa markaa xayawaanadaasi ay madheen intaasna insha allahu tacaala kusoo gunaanadayna haddii ilaahay uu ka dhigo barnaamijkeennan oo aynu kaga hadlaynay xayawaanada diinaasoraadku miyay kusoo arooreen kitaabka qur-aanka kariimka miyayse ahaayeen xayawaano xajmiga intan la leeg leh haa way ahaayeen waynanu caddayna way dhici kartaa inay ahaayeen xayawaano xajmigan leh sidoo kale suurtagalnimada inay jiri karaanna waynu caddaynay haa oo way jiri karayaan qur-aankii sunnada labaduba way tilmaamayeen hada wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu